بسم الله الحمد لله guddoonka baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh waa salaamantiin okay waa guddoonka waa salaaman yahay xildhibaanada waa salaamantiin xildhibaan carabow xildhibaanada hadda ku sacbinayeen ku qeylnayaan u qaadad waa ku taageersanay carabi xildhibaanada hadda xildhibaanada sharafta leh waa salaamantiin aniga waxaan rabay dhowr qodob aan rabaa maanta inaan soo qaato laakiin xildhibaanada igu horeeya soo qaatay waxa yar rabaa inaan taabto maanta horta gobolka Banaadir taariikhdiisa aad looga sheekeeyay kaliya waxaan soo qaadanaa 2008 gobolkan waxaa loo dhisay council deegaan matala gobolka loo dhisay deegaankaas oo jira oo si sharci loo dhisay dawladii ka dambeeyay ayaa baabiyeen siyaasadana loo baabiyay inkastoo aan ku faraxsanahay laba madaxweyne oo iska dambeeyay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh inay xoogaa gambadeen gobolka inay ku dhiirtaan meesha laga rabo in madaxweyne Farmaajo uu ku dhiirado gobolka horta uu heliyo number 2 number 2 anaga xildhibaano golaha shacabka nahay saaxiibana dad isqaanaan nahay deegaano kala duwan ka nimid interest guud oo Soomaaliya matalna kuwa gaarna waa noqoseeyaa marka waa doodi karnaa campaign aan iska sameey karnaa waa iska coday karnaa laakiin waxa la isku aflagaaday ama waxa la isku dhibsado habeeraatee ma jiraan meeshaan annaga gobolka Banaadir waxaan aaminsanahay haddii aqal sare ay noqoto iyo haddii ay golaha shacabka noqoto matalaad numberka ugu badan Soomaaliya inuu heli karo facts haddii data noqoto nooc kasta noqoto meelaha qaar aadi maayo laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay magaalo Soomaaliyeed oo Soomaalidu ku dhan tahay oo hooya oo sharaf iyo karaamo ummadda Soomaaliyeed u haysa dadka deegaankan waxaan aaminsanahay inay yihiin dad nabadeed sida dhammaan dadka Soomaaliyeed bay yihiin horumar kasta oo magaaladan gaartay waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay gaareen marka xildhibaanada dhibsanaya xalayt waxaan maqlay markaan campaign sameynay xildhibaano campaign kale ku jira marka horta gobolka Banaadir iyo reer hebel loo arkin hal loo arkin ay magaalada Soomaaliyeed koow ay labo annaga markii aan campaign-kan bilaabaynay laba option aan ku tashanay labada option waxay ahayd laba option oo nabadeed wax colaada iyo wax dhibaato ma jirin option wuxuu ahaa inaan dhaqanka culimaadudiinka dhalinyarada haweenka ganacsatada siyaasiyiinta aan shir la galno kadibna aan ka tashanno si gaar ah u soo tashanno haddii xataa nagu saamaxdo inaan bilaawno shirar gaara mudaharaadyo nabadeed rabshada maaha nabadeedne oo aan ku muujinayno inaan bilaawno laakiin waxaan door bidnay inaan baarlamaanka Soomaaliya asxaabteena ay ka buuxdo inaan campaign ka sameeyno waxaan aaminsanahay maalinba waxaan kaloo aaminsanahay dad badan activist ah inay baarlamaanka ku jiraan oo aaminsan waxa aan aaminsanahay waxaan idin ka rabno waxa waaye gobolka Banaadir aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaanada soo jeediyay 13 sano tirana siiyo waana cadeey kara sababta waa cadeey kara xildhibaanada salaada soo jeediyay ama ku raacsanahay waxaan rabnaa inaad nala shaqaysiin garab nagu siisiin haddii waxyaabo la tabanaa jiraan oo ka wada hadli karnaa campaign-ka cidda aan ka sameeyno cod ka rabno waa idinka ka rabnaa xildhibaanada la jooga waxaan rajaynaa sida aad gobolada waqooyi garabka loo siiyay xildhibaanada ka soo jeeda inaad garab noo sii doontiin waliba si gaar ah waxaan ugu hambalyeynaa sida garabka loo siiyay xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi dalka waxaan rajaynaa Banaadirna taas oo kale ay doon tahay wa salaamantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh